isku soo noqod wanaag saxaabta qaliga ah meel walba joogtaan mar kale magacaygu waa Qaliiji waxa ku guda jirnaa casharadani Deutsch for Anfänger Jarmalka loogu talagalay dadka bilowga ah waxa ku guda jirnaa qaybihii dhexe qaybtii u dambeysay ee B2 daawasho wacan weli waxa ku jirnaa Zweiteilige Konnektoren oo ah xiriiriye ka kooban laba dhinac oo markaad dhinac soo qaadatid qasab kale ay tahay dhan kalena soo qaadato hore waxa u soo qaadanay si ay u shaqeynayaan entweder oder oo micnaheedu uu yahay laba midkood waxa rabaa kan ama kan adiga aad kala dooranaysid ama sidoo kale waxa soo qaadanay feda noch oo aad labada shayba ku diidayso aad dhehaysid aniga kan marabo kanna marabo ama kan ma ku hadlo kanna kuma hadlo iyo sidoo kale tood nicht nur sondern auch oo ah ayadana aniga shaygan kaliya ma rabo sidoo kale waxa rabaa shaygan kale tood oo qaybta markii aad sentence qaybtood ku soo qaadatid oo aad qaybta dambe kan ku soo qaadanaysid maanta waxa isla fiirinaa qaabka u shaqeynayo sowohl als auch oo micnaheedu uu yahay si aad labada wixii oo sentence kaas qosay dhan aad u wada baahan tahay tusaale ahaan waxa rabaa kan sidoo kale waxa rabaa kan oo aad labadaba ku rabtid kan labadaba waa rabtaa laakiin waxa leedahay kaliya kan bis ma rabo sidoo kale waxa rabaa kan laakiin kan waxa way waxaan u baahanahay kan sidoo kale waxaan u baahanahay kan si aad u sii fahantaan oo aad si fiican u sii fahantaan hoos waxa idinku ugu diyaariyay tusaalooyin oo ay ka mid yihiin ich spreche sowohl Englisch als auch Deutsch tii hore waxay ahayd ich spreche nicht nur Englisch sondern auch Deutsch oo ahayd aniga kuma hadlo kaliya English sidoo kale waxaan ku hadlaa Deutsch laakiin hadda waxay tahay ich spreche sowohl English aniga waxaan ku hadlaa English als auch Deutsch sidoo kalena waxaan ku hadlaa German oo sentence-kan wuxuu ku sheegay waxay tahay in qofkan labada shayba uu ku hadlo oo labadan Englishka iyo German-kaba inuu qofkan uu ku hadlo oo ah ich spreche sowohl English als auch Deutsch aniga waxaan ku hadlaa English sidoo kale xataa waxaan ku hadlaa German xataa waa ku hadlaa oo tusaalaha ku xiga hadda isla fiirno ninkan wuxuu rabaa in oo sentence-kiisa ku sheego in uu rabo inuu soo iibsado roti iyo sidoo kale tood shaah marka wuxuu leeyahay ich kaufe sowohl Brot waxaan soo iibsanayaa roti als auch Tee sidoo kale waxaan soo iibsanayaa shaah oo sentence-ka labadaba ku jiro haddii oo soo qaato sowohl oo als auch ka tago xogaa sentence-ka dhadhankiisa waxayna ka maqan yihiin waa laga dareemaa waxay noqonaysaa ich kaufe sowohl Brot Tee yacni qasab waxa markaad sowohl soo qaadatid in sentence-kada als auch ee qaybta kaleetood ee tilmaamayso marka wuxuu leeyahay ich kaufe sowohl Brot waxaan soo iibsanayaa roti als auch Tee sidoo kalena waxaan soo iibsanayaa shaah sentence ku xiga wuxuu ku leeyahay ich verkaufe sowohl Handy als auch Computer verkaufe waxa ka yimaada verkaufen in aad wax iibsid kaufen waa marka wax soo iibsanaysid verkaufen waa markii aad wax iibinaysid oo adiga shay qof kale ka iibinaysid marka ich verkaufe waxaan iibinayaa sowohl Handy telefono als auch sidoo kale computer sidoo kalena computer waa iibinaysaa shirkadda company-ga haysid wixii kale todo iibiyaan telefonadana way iibiyaan qaybta kale ku xigta wuxuu ku leeyahay waxa rabtaa inaad baaskiilka ku dhahdo baaskiilkan wuu cusub yahay sidoo kalena waa nadiif waa sentence-ka ku isticmaalada waxaa leedahay das Fahrrad baaskiilka ist sowohl neu waa cusub yahay als auch sauber markii shayga nadiif uu yahay Allah nadiif kaliya ma ahan in guriga markii la tirtiro kale sidoo kale nadiif waa qof markii baaskiilka oosan haleysnayn oo wax dhibaato oosan lahayn sidoo kale ku isticmaali kartaa baaskiilkan waa nadiif oo yacni wax garaafo ama dhibaatooyin oo leeyahay malahan marka waxaa leedahay das Fahrrad baaskiilkaas ist sowohl neu wuu cusub yahay als auch sauber sidoo kale toodne waa baaskiil nadiif ah oo wax cilad oo leeyahay habeeraatee malahan tusaalaha ku xiga wuxuu ku leeyahay ninkan wuxuu rabaa in oo sentence-kiisa ku sheego inuu jecel yahay eyga sidoo kale toodna uu jecel yahay nyaanyuurta tusaale ah waay meeshan haddaad rabtid xayawaan kale waa soo gelin kartaa ama laba qofood magacood waa ka dhihi kartaa waxaa dhihi kartaa ich mag sowohl Hunde aniga waxaan jeclahay eeyada als auch Katzen sidoo kalena waxaan jeclahay mukulaasha nyaanyuurta bisada hadba qof kasta u yaqaan marka labada ba oo ku isticmaali kartaa oo waxaan jeclahay eyga sidoo kale waxaan jeclahay bisada tan ku xigta
wuxuu ku leeyahay ich wünsche mir sowohl ein neues Auto waxaa rajeynaya aniga gaari cusub als auch ein schönes Haus waa riyada qof walba oo adduunyada ku nool in uu helo gaari cusub iyo sidoo kale tood guri qurux badan marka wuxuu ku leeyahay aniga waxaa rajeynayaa inaan helo gaari qurux badan gaari cusub iyo sidoo kale tood guri qurux badan ich wünsche mir waxaa rajeynayaa sowohl ein neues Auto gaari cusub als auch ein schönes Haus sidoo kale guri qurux badan ayaa rajeynaya sentence ku xig wuxuu ku leeyahay sowohl mararka qaar dadkii daawaday qaybta ugu horeysay ee infida order waxaa ku sheegay qaabka ay sentence-ka marna u soo bilaabmayso marna dhexda ugu gasho haddii aad sowohl mar bilow ku aragtiyaysan wax la yaab leh kula naqanin maxaa yeelay meel alle meesha rabta ayaa dhigi kartaa oo haddeertaan sowohlka wuxuu keenay qaybta bilowga ah dadkii hore ila socda ayaa ila socda wuxuu leeyahay markaan sowohl Ahmed ninka la yidhahdo Ahmed als auch Aisha naagta la yidhahdo Aisha wissen nicht genau ma oga wo das Buch ist buugga meesha oo yaala labadooda ma oga ayuu ka wadaa marka muhiimadan waxay tahay in sentence-kan oo quseeya labadan qofood oo quseeya sowohl Ahmed ninka la yidhahdo Ahmed als auch Aisha naagta la Aisha wissen nicht genau ma oga comma wo das Buch ist commadan iyo sidii buug ku imaaday waa Konnektoren kale todo kale dib ayaan ka sheegi doonaa iyo idin waalin laakiin muhiimaddu waxay tahay in sentence-kan oo quseeyo Ahmed iyo Aisha maadaama aysan ogeyn buugga meesha oo yaala marka wuxuu leeyahay sowohl Ahmed als auch Aisha ninka Ahmed iyo sidoo kale tot Aisha wissen nicht genau ma oga wo das Buch ist buuggaas meesha oo yaalo sentence ku xiga wuxuu ku leeyahay sowohl das rote Sofa als auch das grüne Sofa gefällt mir sehr gut qofkan waxa laga yaabaa meelahaas carwooyinka kuraasta lagu iibiyo kalino joogo wuxuu ku leeyahay sofaha ama fadhiga guryaha la dhigto oo gaduudka ah iyo sidoo kale toodkan greenka ah ayaa xiise geliya ayuu ku leeyahay gefällt mir sehr gut markii aad jeclaysato waxaa la das gefällt mir gut kaas si fiican ayuu ii qanciyay marka ninkan wuxuu leeyahay sofaha gaduudka ah iyo sidoo kale sofaha greenka ah ayaa side u jeclaysay ayuu ku leeyahay marka sowohl das rote Sofa sofaha gaduudka ah als auch das grüne Sofa iyo sidoo kale tood sofaha greenka ah gefällt mir sehr gut side ayaa u jeclaystay tan u dambaysa aydan wuxuu ku leeyahay ich kann sowohl gut tanzen als auch gut singen aniga si fiican ayaa u ciyaari karaa sidoo kale tood si fiican ayaa u heesi karaa tanzen waa markii aad jazzka ama ciyaaraysid singing waxa waaye markii aad heesaysid ama hees qaadaysid marka wuxuu ku leeyahay aniga si fiican ayaa u dance karin karaa sidoo kale tood si fiican ayaan u heesi karaa marka isku day inaad sentence kale tood dhistaan in erey jabkiin aad ka imaadaan oo aad jumlooyinka noocan camal ah aad af German ku dhistaan idinkoo isticmaalaya kuwii hore aan usoo qaadanay iyo sidoo kale tood qaybta maanta aan qaadanayno si ay kugu fududaan haddii aadan practice badan sameynin oo aadan sentence badan ku celinin oo kugu adag tahay inaad imtixaan ku baasid maxaa yeelay qof aan dadaalin oo wax fudud ku hel adduunka ma jiro marka waxaa idin rajeynayaa in aad si fiican ugu practiceyn doontaan doo ilaahay insha Allah taala haddii aad wax su'aal qabtaan ama qalad ku aragteen ha kala bashkina ila soo xiriirtaan haddii video macno ku keen like sa inta kulankan kulan ka xiisa badan kulmi doono anigu Qaliiji ah fi amaan Allah